daawadayaal halkan waxaan idinkuugu soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey duulaankii saaka uu ku qaaday ruushka waddankaasi Ukraine. wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya dalkaasi Ukraine ayaa waxa ay sheegayaan in dhimasho badan oo boqolaal qof ay jiraan weerarka duulaanka ah ee dowladda ruushka ay ku qaaday waddankaasi Ukraine. dowladda ruushka ayaa bilowday howlgal military oo ka dhan ah dowladda waddankaasi Ukraine iyada oo ay jirtay digniino ka imaanaya wadamada reer galbeedka, waxaana loogu hanjabayay in cunuqabateyn aysan hore u arag xukuumadda Moscow in lagu soo rogayo. warbixinada horudhaca waxa ay sheegayaan in weerar gantaalo ku bilowday iyo qaraxyo ay ka dhaceen caasimadda Ukraine ee Kiev iyo magaalooyin kale. waxaa jirta in boqolaal qof la soo warinayo in ay ku dhinteen. booliska Ukraine haddii aynu eegno waxa ay shaaciyeen 7 qof oo Iiraan inay duqeynta ay ku dhimatay, 19 qof ayaa waxa lagu laayahay gantaalada lagu dhuftay magaalada Kiev ee caasimadda waddankaasi Ukraine sida mas'uuliyiinta waddankaasi ay sheegeen. madaxweynaha waddanka Ukraine ayaa ugu baaqay golaha amniga qaranka iyo difaaca in ciidamada militariga ay si degdeg ah uga jawaabaan weerarka ruushka uu soo qaaday. madaxweynaha waddanka ruushka Vladimir Putin ayaa saacad hore oo maanta oo Khamiis waxa uu sheegay in uu bilowday howlgalka military ee laga fulinayo gobolka Donbas ee bariga waddankaasi Ukraine, halkaasi oo ay ku yaalaan gobolada Luhansk iyo Donetsk oo ay dowladda ruushka ay jamhuuriyado ay u aqoonsatay. war uu siiyey telefishinka qaranka waddankaasi ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in aysan ka labalabeyn doonin dowladda waddankaasi ruushka tallaabo adag oo laga qaado dowladda waddankaasi Ukraine. intaasi oo ay jirto golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa waxa uu dalbanayay in weerarkaasi la joojiyo. Putin waxa uu ugu baaqay ciidamada waddankaasi Ukraine in ay isa soo dhiibaan ayna ka baxaan aagga dagaalka ay hadda ay uga jiraan dhinaca bari ee waddankaasi Ukraine ayna ku laabtaan guryahooda. dowladda waddankaasi Ukraine ayaa waxa ay shaaci ka qaaday in dowladda ruushka ay qaadi doonto mas'uuliyadda dhiigga ku daata waddankaasi, waxaana sidoo kale ay tilmaantay Ukraine in waddankeedu aysan noqon doonin mid gumaysi u gasha dalka ruushka. wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Ukraine Dmytro Kuleba ayaa waxa uu sheegay in Putin hadda uu jiideynayo dagaal guud oo lagu soo qaado waddankaasi Ukraine, balse waxa uu tilmaamay ciidamadooda militariga inay ka hortagi doonaan. wasaaradda difaaca ee waddankaasi ruushka ayaa waxa ay tilmaantay in ay beegsan doonto saldhigyada military iyo nidaamyada heer difaac ee cirka iyo sidoo kaleba midda dhul ee dowladda waddankaasi Ukraine. wariyaha BBC-da ee Kiev James Waltz ayaa waxa uu leeyahay isagoo soo xiganaya mas'uul ka tirsan xukuumadda waddankaasi Ukraine in ay jiraan digniino waaweyn oo laga bixinayo howlgalka military ee ruushka hadda uu bilowday. mas-uulkaasi waxa uu sidoo kale u sheegay BBC-da in la maqlayay tan iyo saakaba gantaalo xoogan oo ku dhacaya Kiev. waxaa jirta ayaa la yiri dhaqdhaqaaqyo ay ciidamadu ay ka wadaan dhinaca iyo magaalada Odessa ee koonfurta waddankaasi Ukraine. mas-uul u hadlay dowladda waddankaasi Ukraine waxa uu sheegay in ciidamadu hadda ay yihiin kuwa ka soo tallaabaya dhinaca xuduudda, waxaana la tilmaamayaa in ay militariga ay u diyaargaroobeen sidii ay uga falcelin lahaayeen. waxaa jirta warbixino ay tabinayaan warbaahinta maxalliga oo laga soo xiganayo wasaaradda arrimaha gudaha Ukraine oo sheegaysa in duqeynta gantaalada lala bartilmaameysaday saldhigyo ay yaaleen gantaalada military ee dowladda waddankaasi Ukraine. sidoo kale waxaa la bartilmaameysaday xarunta ciidamada militariga ee magaalada Kiev ay ku leedahay. ciidamada militariga ee waddankaasi Ukraine bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ciidamada ruushku ay bilaabeen duqeyn adag oo ay ka sameynayaan bariga waddankaasi. bayaanka ayaa waxaa lagu yiri weerarada gantaalada waxaa lala bartilmaameysaday garoonka Boryspil ee u dhow magaalada Kiev iyo sidoo kale tiro garoomada diyuuradaha ee waddankaasi Ukraine. ciidamada cirka ee waddankaasi Ukraine ayaa waxa ay ka hortageen ayaa la yiri in dowladda ruushka ay diyuurado ay si aad ugu duqeyso waddankaasi. bayaanka waxaa lagu beeniyay ayaa la yiri in ay jiraan ciidamo Ruushiyaan ah oo gudaha u soo galay magaalo xeebeedka Odessa ee koonfurta dhacda. warbixinada horudhaca waxa ay leeyihiin mas'uuliyiinta Ukraine oo laga soo xiganayo in ciidamada ruushku ay yihiin kuwo sidoo kale dagaalka kala qayb qaadanaya ciidamo ka socda waddanka Belarus. waxaana jirta ayaa la yiri in weerar toos ah uu ka soconayo waqooyiga waddankaasi Ukraine. Belarus oo dhinaca xuduudda waqooyi ee Ukraine dhacda ayaa waxa isbahaysi wanaagsan ay la leedahay ruushka. dadka wax taxliiliya ayaa dowladdan yar waxa ay ku tilmaameen dowlad u adeegaysa dowladda waddankaasi ruushka. weerarkaasi ka soo bilowday dhinaca iyo waqooyiga ayaa waxaa la tilmaamay in dowladda ruushku ay ku doonayso in guud ahaan waddankaasi ay gacanta ay ku dhigto. kumanaan dad ah ayaa ka barakacaya caasimadda waddankaasi Ukraine. waxaa yeeraya oo la maqlaya fariimaha digniinada ah. waxaa sidoo kale jirta in dadka loogu baaqayo guryahooda in ay ku sii sugnaadaan, waxaana jirin dhaqdhaqaaq magaalada ka socda. sidoo kale baraha bulshada ayaa waxaa loo adeegsanayaa meelo qaar oo laga soo duubay qaraxyadii
gantaalada ahaa iyo shakhsiyaad dhaawac ah oo la qaadayay. madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku tilmaamay weerarkaasi mid aan la aqbali doonin oo ay ciidamada militariga Ruushka iyo Ukraine ay ku qaadeen. dowladda Mareykanka iyo xulafadoodii waxa ay ka shaqeyn doonaan ayaa la yidhi wadiiqad midaysan oo looga jawaabi doono Ruushka. waxaa si kulul u cambaareeyay weerarkaasi wadamada adduunka. madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu tilmaamay in howlgalkan uu noqon doono mid lagu soo gabagabeyn doono dowladda waddankaasi Ukraine tallaabada ay ku doonayso in ay xubin ay uga noqoto waddankaas waa gaashaanbuurta NATO.